Ha ka baqin inaad isbeddel samayso, ha ka cabsan inaad fashilanto ama dhibaato ku soo gaadho. Waxaadna ogaataa haddii aan mugdi jiri lahayn, marnaba maad aragteen xidigaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale muuqaal cusub. Noloshaada markasta xasuusnow 3 shay. Midka koowaad wuxuu yahay ballanha qaadin markasta aad faraxsan tahay. Midka labaad wuxuu yahay ha jawaab celin marka aad xanaaqsan tahay. Midka saddexaad aan rabo inaan kula wadaago wuxuu yahay go'aan ha gaadhin marka aad murugaysan tahay. 3 shay marnaba ma soo laaban doonaan: waqti tegay, iyo hadal la yidhi, iyo kalsooni luntay. Kalsoonidu waa sida dhalada oo kale, mar haddii ay jabto marnaba ma noqon doonto sidii hore. Shimbirka saaran laanta sare ee geedka kama cabsanayo in ay laantu la jabto, sababtoo ah kuma kalsoono laanta ee waxa uu ku kalsoon yahay baalashiisa. Ku kalsoonow naftaada markasta. Haddaad barato deeqsinimada iyo cafiska, ogow waxaad baratay siduu Alle kuugu naxariisan lahaa. Waqtiga aad joojiso inaad caqabadaha la qabsato waa waqtiga aad joojinayso inaad hore u socotid. Noloshaadu taariikhda waxay ku tahay fariin, ee hubi inaad wanaag jacayl ka tegayso. Ha la fadhiisanin dadka xunxun sida bakhaylada iyo xaasiinta, sababtoo ah waxay kugu talaalayaan cudurkooda. Mar walbana ka fogow dadka noocaas ah. Waxaa jira dad ku maqli kara adigoo ku hadlaya 1000 hadal, laakiin aan marnaba ku fahmayn. Sidoo kale waxaa jira dad ku fahmaya adigoon xitaa hal eray ku hadal. Haddaba haddii aad hayso dadka, marnaba ha sii deyn. Mar walba dadka guulaystay waa dad hadaf leh oon marnaba quusanin. Waxaad ku dadaashaa 2 meelood: ilaalinta sharaftaada iyo ilaalinta caafimaadkaaga mar walba. Qofka cilmiga leh hadduusan lahayn akhlaaq iyo Alle ka cabsi, waa sida dameerka oo kale. Qofku inaanu ciil, cadho ama xanaaq, xuqdad, cabasho, dulmi iyo xaasnimo qabin waa nimco weyn. Ogolow naftaadu inay dhacdo haddana kacdo, waayo aragnimadu waxay timaadaa markaad isbarataan dhibaatada. Haddaynu maanta waxba qabsan karaynin, berri maxaynu filaynaa inaan qabsanno? Uma baahnid qof fiican oo keliya, balse waxaad u baahan tahay qof ku jecel, ku ixtiraama, ku daryeela oo ku fahma. Qaar ka mid ah talooyinka ugu wanaagsan ee aad maqli doontaa abidka waxay ka iman doonaan dhegeysiga dareenkaaga. Weligaa qofna ha quursan noloshaada, sababtoo ah ma ogid awood u qarsoon inta ay le'eg tahay. Ma jiro dunidan qof liita, laakiin waxaa jira qof aan aqoon halka uu ku fiican yahay. Si aad hadafkaaga u gaadho, hiigso meel hadafkaaga ka fog. Caqabad kasta oo ku timaada noloshaadu waxay kuu tilmaamaysaa waddadii aad ku guulaysan lahayd. Dulqaadku waa geed qadhaadh oo soo saara miro macaan. Haddii aadan lahayn dulqaad, nolosha meel ma gaari doontid. Waxaadna ogaataa qofna laguma qiimayn karo aragtidiisa koowaad. Samaan haddaad maqashay, samaantu waa sanqaad walba oo aan abaalcelin ku tiirsanayn, ahna samafalidda ixsaanka oo lagu samro. Dadka oo dhan ixtiraam. Qofka caqliga badani uu ku ixtiraami doonaa intaad ixtiraamta in ka badan, laakiinse doqonku kuma ixtiraami doono. Maalin walba waa fursad cusub oo aad ku bedeli karto noloshaada. Weli jaanis ayaad haysataa haddii ayba nafta kugu sii jirto. Qof kastoo kaa fogaadaana wuxuu ku baraa 2 lugood. Marna ha ogolaan qof inuu ku liido ama qiimo inaadan lahayn uu ku dareensiiyo. Alle ayaa ku abuuray, Allahna wuxuu kuu abuuray ujeeddo cad. Alle ayaana ku karaameeyey. Haddaad shalay sidaad ahayd maanta bedeli weydo, birna sidun baad ahaanaysaa. Hantida dhabta ah waa caafimaadka, ee ma ahan lacag ama dahab. Hadalka ugu dambeeya aan kula wadaagay wuxuu yahay mid xasuusnow: adigu waxaa tahay qof wanaagsan. Hadduu qofku taas arki waayo, adigu khaladkaaga ma ahan, laakiin khaladkiisa weeye.